guddiga xalinta khilaafaadka waxaan u soo jeedinayaa walaalayaal qaar aan aqaana weyne ku jiraan qaar aan aqoonna weyne ku jiraan guddi khilaafaad iyo xallin khilaafaad iyo ansixin golaha wakiilada federaal dowladda puntland idinka uma horreyn kuwaayna ka horreeyey maslaxad iyo waxaan la isku khilaafin bayna ku dhammaan jireen eexlahaan sidaan ku kalsoonahay 3 doorasho oo anigu aan ka qayb galay 2 anigu aan mucaarad ahaa iyo mid aan anigu sameeyey intaba kuwii mucaaradkana wada hadalka bacdi aan la galay ciidii markaa maamulka haysay waan ka heshiinay ka anigu sameeyeyna kuma ceel qabo guddigii u dhignaa baa tihiin waxaa layna ka filayaa cadaalad inaad ku dhaqdaan dadka xubnahana kusoo xushaan waa layna ka horreeyey cid gacan saar aan la lahaa ma jirin guddigii anigu aan hore u magacaabay ninkaan xusuusnayn hadda waan xusuusinayaa guddigii anigu magacaabay waxaa guddoomiye u ahaa injineer yuusuf abshir cadami guddoomiye garowga hadda jooga injineer maxamuud axmed xasan naalaye afhayeenka midna wuxuu ahaa gobolka bari midna wuxuu ahaa gobolka sool caaqil saciid xasan xaaji waraab cadde sanaag bari magacyada gobollada markaan sheegay waxaan sheegaya gobolladii dowladdii ka tagtay gobollada puntland gudihiisa waan ka boodayaa gobollada bari 3 gobolba hadda puntland ka yahay sanaagna 2 ka yahay marka waxaan sheegayaa magacyadii dowladda oo ofishalka ahayd caaqil cabdiraxmaan axmed xaaji cayn caaqil abshir cabdiraxmaan dhegcas bari gobol siyaasadeedka bari ina caaqil cismaan guuraye kaarshe nugaal ina caaqil maxamed cabdullaahi faarax cilal mudug maxamed cabdulqaadir cusmaan xoghaye bari hadalka aan sheegayo waxaan u wadaa guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka waxay soo gaadhay injineer yuusuf abshir cadami in madaxweynuhu u yeeray cabdiweli maxamed faarax cali gaas oo baabuur ugu diray boosaaso oo garow ugu yimi oo rabay guddiga inuu u dhiibo arrinkaas waa muhiim in ummaddu dhegaysato guddigaa hadda gacanta hawsha ku hayaan ay dhegaystaan waan jeclaa warkaas waan ka daba tegay waan weydiiyey yuusuf baan weydiiyey laftirkada garow jooga waxaan ku yidhi madaxweynuhu hadduu kuu yeeray inuu guddiga kuu dhiba waa maqlay muxuu ku yidhi guddigaanan kuu dhibaya maxaad ugu jawaabtay waxaan ugu jawaabay buu yidhi madaxweynihii kaa horreeyey markuu ii magacaabay guddiga wuxuu yidhi ilaahay baan kugu dhaarsheeyey guddigaas madax u noqo iyaga iyo adiga toonna hay ee xanin anig cadaalad wixii ha sameeyey muxuu kuugu jawaabay way eegay wuxuu weydiiyey buu yidhi ma sidaasuu ku yidhi haa iima soo celin hadal dambe wuxuu yidhi waayo iska tag dib dambana iima soo wicin boosaan ku noqday buu yidhi nin kaluu booskiisa u magacaabo halkaas guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta waxayna ka tusinayaa muxuu u magacaabi waayey hadduu cadaalad inuu ballanta anigu aan siiya buu tiyo kale yidhaahdo sida anigu iri maanta anugu kama hadleen taama sheegeen marka taasaa la idinka rabaa guddigay kale say wax ku qaybsheen ciday wax u qaybiyeen siday u qaybiyeen maxaan ugu daray 5 caaqil waxaan ugu daray waxa weeye 5 caaqil maaha waxa weeye mudug iyo nugaal iyo cayn iyo sool iyo sanaag iyo bari waa 5 caaqil waxaan ugu daray xildhibaanku cidda qayb ahaan gobol baa loo leeyahay cidda gobolkaas u ah community-ga ama caaqilada ah ama u ah muxuu ahaadee isimka beesha halkaa degan oo xildhibaanku ka imaanaya in iyagu soo doorteen ee aan isim guud sheeganaya uusan dusha ka marin saasaan lagu sameeyey hadday saas dhacdo aada soo martaan wixii dhaca idinkaa ka mas-uula haddeer waxaa igu maqaalaa sanaagna waa laysku haystaa soolna waa laysku haystaa hor sool iyo sanaag waaba la qabsadayo dad baa haysta oo nala ku haysta maxaa leeyahay idinka baa kala haysta laftigiina baa ku haysta kuraastoodii guddigiina halkaan madaxweynuhu magacaabay
taasu waa intaa waxaan kaloo hadal u jeedinayaa guddoonka guddiyada wakiilada guddoonka iyo guddiyada golaha wakiilada oo sanadka soo socda bilaabaya shaqada waajibaadka laga doonayo waxa weeye inay yihiin dan diinta islaamka u hoggaansan oo ku dhaqma oo lagu yaqaan oo nadiif ah akhlaaq wanaag leh iyo anshax hufnaan leh hoggaamin leh saasaa laga doonaya anugu ku ammaani maayo kolley annana waa joognay iyaguna intii tabartooda waa dadaalayeen guddoonkii aniga berigaas joogay wax dhibaataa annagu iskuma aanaan qabin waxa intii aan anagu raalli kaan waqtigii dastuurka la samaynayay niman dawlada gadaal ka hadlo wax iyagu sameeyeen ka daba tago ceebaynaya waa maqlaayay laakiin baarlamaanka hadda dhammaaday laba ra-iis baarlamaan baa joogay labadii waxay isqabteen madaxweynaha kii horeeyana waa isqabteen oo in shaqada laga saaro qayb buu ka ahaa kii dambena way isqabteen wuxuuna ahaa baarlamaankii ugu horreeya puntland ebid soo mara oo golaha xukuumadda intay tiro ka leegyihiin hal mada kalsoonidii kala noqday oo misna markii gacan saar laysula tegay hal mara kalsoonidii kusoo wada ceshay hal midax ka reebay ee mar wada siiyey baarlamaankaas iyo guddoonkaas oo kale baa ina kala dardaarmaya ha noqonin waa guddoonka iyo guddiyada joogtada ah oo la samayn doono waa dardaaran oday waayo araga wakiil ininka ah idinkaa i doortay 49 cod baa laygu doortay xaggana wakiil baan idinka ahay walaalkaas guddiyadii muxuu ahaye loo kala diray maamulada dawladaha xubinta ka ah ay soo ururiyeen anaa u xil saaraa anaa ku saxeexan wixii inay ku qoraa halkaas ku qoray waana u dhiibayaa muxuu ahaye meediyada hadeerba ka akhrista waxaa xaq u leedihiin wixii kale haddii guddoon fiican uu soo baxo waxaa soo baxaya guddi doorasho oo baarlamaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorta xildhibaanow haddii aad nimanka meesha jooga kasoo sababta baxdaan oo si xaqa wax kusoo baxaan oo aada fadhiisataan layna dhaariyo bisha 1 January guddoon fiican doorta oo markaas isagu markaas soo saara guddiga doorashada rasmiga ah oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markii processka intaa dhammaado puntland wixii ay higsanaysay oo ay filaysay inay 5 sano oo soo socota ay usoo baxaan way sax bay noqonayaan haddiise waxaas wax ka xumaadaan waxaa ka mas-uula processkaas intii qaybta ka ahayd madaxweynuhu horeeyo ay ku xigaan guddiga hadda gacanta ku hayo xalinta khilaafaadka iyo ansixinta baarlamaanka guddoonka soo socda oo baarlamaanka guddiyadiisa joogtada ah guddiga doorashada oo ay magacaabi doonaan oo isagana laga rabo cadaalad laga rabo weelgumbu ka tudmaa gumbu ka tolmaa dhalinyarada garan maysaan umarinaya haamaha markii la tolaayo hadda waxaad iska tan bir iyo caag meelba la keenay salka hoosaa laga soo tolaa sidoo hoosta looga tolo kor ku yimaadaa haamaha iyo dhiilaha markii la tolaayo baarlamaanka ayaa wax ka samaysmayaan wax walba asaas isagaa loo doortay dadka wakiilka ah gacanta maanta nimanka ku hayaana waxaa ogaataan haddaa wax xumaysaan doorashadii dhaweyd meel wax waa ka dhacdhaceen laakiin meelihii u xumaa raggii wax xumeeyey oo baarlamaano aan dadka ka imaan sameeyey koonfur baan joogay 3 bilood wax yar baa ka nood waa laga argoostay ama cid ka argoostay maaqa dadku waxay yidhahdeen nimanka odayaasha habaa laayay laakiin kama banaana in kuwa laga exdan ay ku jireen lagama banaana marka lafihiinan isu badbaadiyey ummadana badbaadiyey magaciina iyo sharaftiina badbaadishay intaas ayn leeyahay maanta iyo waxa inay haray biri waa inay haray ilaa waa dhamayn kartaa madaxweynaha xilku hadda ka dhammaaday oo yiri murashax baana isagana fariin baan u diraya madaxweyne cabdi weli anugu filima inaad sharaxaysa
dhowr jeer hore atiin anu murashax maahin dib baan kasoo sheegi doonaa waxaan aad iyo aad u xusuusnahay 14 January 2014 maalintii xilka kugu wareejinaya sawirkeeda aan hayo markaa xilka kugu wareejiyay oo ku mariyay ciidamadii aan gacanta ku hayay intii aan ka gaari karo xarunta joogtay inta kalena aan ku tilmaamay tarakoobkooda ku siiyay wixii aan gacanta ku hayay maca gurigii furihiisii alaabtii furniture-kii loo soo gaday oo sidiisii container-da ugu jira aan ku furay ku tusay inventory oo dhan aan ku dhiibay saddexdii mashruuc oo caanka ah aan ku dhiibay oo ahaa mashruuca aeroboortka Garowe Boosaaso oo soo dhamaaday fayskiisii dhamaa tartankiisii shirkadihii gacantana ay ku haysay Unibos hay'adda UN-ka u qaabilsan dowladda Talyaaniga bixisay lacagta Unibos baa maamulisay oo supervision-ka lahayd oo ay sameynaysay aan ku wareejiyay hawshiisa inay bilaabato aeroboortka Garowe iyo muxuu ahaa jaamacadda Maakhir oo iyagana heshiiskoodii la soo saxeexay 10 bishii October 2010 oo daahay oo aan dhowr jeer ka hadlay sababta oo u daahay ay hay sabab adigu aad qayb ka ahayd intaad joogtay xamar aad joogtay isagana documentigiisa baan ku wareejiyay master plan-kiisana waan hayaa maanta master plan-kiisa laguma dhaqin inta samaysan isagoo qabiyaa faceka labaadna aan loo raadin qoladii hawsha maamuleysay oo ahayd nimanka la yidhaahdo Kuwait Fan oo loo dhiibay kandaraaska nimankii qaatay subcontract ay ku bixiyeen lacagtii ayna ku wada wareejin 1,700,000 wili ay ku maqan tahay 500 kun markii hore dulaal iyo malaalay kala qaateen adigu aad ka wareysay rag ay ahaayeen qaar wasiir ahaayeen anigu aan maqashoonahay ama hal deer aan ogahay anigu aan Australia kala soo hadlay oo aan ku yiri mashruuci faceka labaad ma aha in kii rabta ana bixinayo lacagtii imaaraadkan ka bixinaya xogaaga magdhow ahaan intii hore looga xaday tuuganimadii ku jirta hadda aeroboortka oo runway-ga laamigu saaran yahay la rabay 45 inuu ahaado runway-ga oo dhan oo ahaado 60 markii xajka sanadka la aadi gaaray diyaaradii ku degi kari waayeen ilaa kuma kala wareegi karo terminalkana ma tegi karo qaaraankii aan nalka ururnay hadda aan ku ballaarinay shirkadiina aan yidhi soo codsada bal inta ay dhiman tahay lacagtaas inta ka dhiman 1 milyan way noqonaysaa intay qalabkooda furfuran in la sameeyo xamar bay taallaa carqaladda aad calaaqaadka gelisay labada dowladood dhexdooda aad gelisay baa lacagtaas u imaan weyday waa taalla baasha caalamka aad bixisay beesha caalamka waxay sugaysaa inta maamul yimaado madaxweynaha iyo prime minister-kuna gacantay ku hayaan qoraalkii waa diyaar waa la sameeyay intaas waa ugu bishaareynayaa dadka reer Puntland in ay lacagta aeroboorkaas oo dhammaan doono qaybtaas intaasna waa taan kugu wareejiyay aakhir jaamacaddana waa sidoo kale wadadii Chinese ku sameeyay inta ay ka marto mudug iyo nugaal iyo sool iyo inta biyo baxdada ilaa Boosaaso iyadana waa taan kugu wareejiyay faylka saddexaas mashaariic waxay madaxweynaha oo bixin karay oo gacanta ku hayay inta kale wasiirada iska lahaa inta dhigtada ku soo dhacaysa Cabdullaahi waa dad intuu hadda tago warma qabta anaa sameeyay ama sameeyay waxaad samaysay oo aad bilowday oo aad dhamaysay bal dadka farta u saar bal dadka u faas ama hadda iyo qabtaa aad uga tagayso oo gacanta hadda lagu hayo taas waxaan ku leeyahay waxa weeye dawlad dhamaystiran inaan marka kugu wareejiyo 14 afkaa ka qirtay meedida ku jirta waxaan ka codsanayaa inaad saartaan maalmaha wixii Cabdiweli afkiisa ka soo baxay been aan laga sheegin run ah inuu yiri dawlad dhamaystiran oo ciidamadeedii iyo xukuumadeedii iyo dhismayaasheedii iyo waxba lagu wareejiyo bal arrintaas soo saar taas waa wixii Cabdiweli afkiisa ka qirtay su-aashu waxa weeye marka Cabdiweli maxaad adigu hadda maanta wareejinaysaa waa inuu wada joognaayo haddii ilaahay idmo bal maxaad wareejinaysaa saadaasha aan hayo ma soo noqonaysid maxaad wareejinaysaa ya maxaad wareejinaysaa waxa weeye waxaan ka maqlay idaacadaha weli wuxuu yiraahdaa mashruucyada isteediyadu ay degmooyinka ay ka shaqeeyaan councilska GBLG-ga yaraasay goormu aha kaas 5 sano aan anigu joogay waa socday waaba ugu imisoo markaa barnaamijku diyaar ahaa dawladda iga horeysay oo diyaar waqtigeeda
ولنا واسعنا وانا صعون دونا وش وعلى هذا برنامج مقصولة يوحصل الشيء جاي خلاص إسلام هو إسلام وضن كان بعجاز حاس إنه وين مشير لي ما وش نتر ملح وينها ما هذا بقى كل إن نحلها يوحبها لقيت في العيون السمايو واحد ما أنت أدو إنه شيء كديت بالنوشة بدرول بانو قضني بانو كسجني لبا بان نوال ديار كهاي لقى قضو سومالي ونبى على هاي لكن هوش على صيغة من الله waxaan laga filayay marka waxay ahayd wixii anigu aan wareejiyay amni dhaqaale sugan arrimo bulsho ma garatay mashaariic siyaasad degsan oo nidaamka federaalka ku dhisan oo maamuladii ay dhisan yihiin dawlad goboleedyada dadku u yaqaan laakiin dawladaha waddanka dawladaha federaalka ah dhisan yihiin qaarkeed soo socdaan waxaad ku bedesheen carqalad baad ku bedesheen waa ku soo noqon doona carqaladaas amnigii dalka oo sugnaa cabdi weli waad burburisay ciidankii daraawiishta meel ku sheegay booliskii maanta magaalada amnigeeda sugi lahaa ciidamadii baddaa sugaya oo dawlad aan saaxiib nahay iyadu gacanta ku hayso tirakoobkiisa iyo tiradiisa iyo maalgelintiisa iyo mushaarooyinkiisa gacanta ku hayso ciidankii asluubta meelaha lagu sheego ciidankii Somali National Army oo Soomaaliya oo dhan ka dhaxaysay qaybta aan ku lahayn iyo booliska bal meel ku sheeg 3,000 oo ciidan ah ayuu ahaa safiirka Mareykanka 2013 James Wan 3,000 baa qayb hesheen mushaarkooda annaga bixinayna diyaar garaysta inaad diyaaraysid baan kugu wareejiyay ilaa hadda lama hayo gobolada aan weli maamulku wada gaarin nimanka odayaasha ah weli meelo badan ay weli ka haystaan aan gaarin ciidanka eesana waa u dhisan yahay maxaad biri Soomaali kaga qayb galaysaa u tagaysaa meel walba waa la tababartay meel walba waxba la yaqaana saraakiil hoose dhisantay saraakiilna dhisantay ciidamada dhismay maxaad Soomaaliya 5 sano oo la soo dhaafay aad diyaar garaysay oo aad ka galaysaa hal askari iyo hal sargaal oo aad tababar u dirtay umaleyn maayo inuu jiro waaba huba inuu jirin kuwii anigu aan tababaray daryahaas xamar baan ku arkay nafsa la aadeen kuwa madaxtooyada waardiye ka waan ku arkay oo tahayo halkaan diina maarayaal iyo ah meelaha ninooyinka looga baahan yahay halkaan aan looga baahnaa laakiin xaggaas haday aadeen waxba ma dhiman anigu mar haddii meel kale ka qabanayaan waa isla sidii marka arrintaas burbur amni baad wareejinaysaa dhaqaale nasiib xumo nin yiri PhD baan ku haystaa dhaqaalaha oo makiinad intuu soo gato hol bangiga ku dhagan intuu dhigto daabacdo isaga iyo gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka ay iyagu lacagta leeyihiin oo ay daabacanayaan warqadahaas oo lagu dhacayo dadka danyarta inflation waxa lagu dhacaa dadka danyarta masaakiinta maalin walba oohintooda islaamaha enji iyo jooga hargey boosaaso iyo burtinle iyo muxuu ahaade burtinle ugu dirsanaayo ayaan bay kuwa lacagahaas keenayay masaajinta ugu galeen bay ku ulayeen kuwii maanta lacagaha gadaayo cadeynayay maanta hadda waxa la ii sheegay anigu waxaan xusuustaa maalinta xilka wareejinaynay doolarku wuxuu ahaa 320 ayuu ahaa 320 uu ahaa boqolkii kun waxa 2 milyan iyo 300 ما أنت وحال يري صد إيه اللح يا كمسؤولة وذلك مساكين تاهو يعني يضيع عنها قضية هلب كبا كمسؤولة نسين ننكي دغالها شيكتي بقولك شهادة الشيغان أيوم معلنك إنو كوها شيغان أيوم دد كوريجي شيغان أيوم 5 سنة هالكافر دي بالغول حساب تما يا لغول حسابتي إلهي جو سو كل حساب تما يا ددك هالكا جوغان آخرا وسيغان لغول حساب تما أدون كانوا سيغان لغول حساب تما Soomaaliya inteeda kale xamar ka mid tahay waxa weeye 2 milyan iyo 400 waay halka dollar marka cid baa malayn ka dhay gudoomiye madaxweynihii dalka iyo ra'iisul baarlamaanka ku-xigeenkii tay makiinad keensadaan bay waxay ku biilqaysanayaan dadkii danyarta ah dalkooda qofka marka sidaa sameeyay iyo kuwa kale oo haddaba misna iyagu raba inay gudoomiyayal ka noqdaan aqalka maxaan golaha wakiilada waa inay ogaadaan dambigay galeen
inaan loo dhaafayn dibna looma dooran karo wixii xishoonaya ama ilaahay ka baqaya ama aakhira ama dadkooda ka xishoonaya siyaasadda maqaamkii puntland uu lahaa siyaasad ahaan oo u ahaa tusaale ama role model dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ahaa maanta dhulkuu yaalla maxaa yeelay haddee wixii laga filaayey oo ahaa inay macallin ugu noqoto oo kuwa kale caawinto oo ay u dirto maaragtay qaabka cashuuraha urursanayaan siday amniga u sugeen siday maaragtay wixii kaga khibrad roonaayeen waxaasoo dhan inay ka caawinto iyadii baaba intaa gurigeedii loogu yimi lagu shiray waxaa lagaga dhawaaqay jabhado SSDF iyo UAC iyo SPM baaba lagaga dhawaaqay garoowe intaa la isugu yimi oo la yidhi mareeb baa xarun ka dhaqaynaa jabhadaan waa lala jabhadaynaya ma waxaan joognaa waagii dowladdii maxamed siyaad ay ku bilaabeen jabhadu miyaan maanta joognaa inagoo maanta dowlad federaal ah oo dowladihii xubintahay wada dhisan yihiin oo maanta la filaayo dowladda Soomaaliya inay isla wada saan qaado oo adigu aad tahay ninkii lagu tashanayay oo maamulka ugu dhisnaa madaxda ka ahaa hogaaminta wanaagga u noqon lahaa inaad taas noqoto waxaan inii sheegayaa maanta arrinta khilaafka ahi weliba khaas ahaan dhinaca puntland kuma dhisna khilaaf rasmi oo daacada documentigiisaan idin siinayaa si anagu kaga jawaabnin kaasaa ayna ku filan inay annaga nagu kalsoonaan bay ku filay intay hadda meel ku boodayaan mar nairobi aadayaan midna meel aadaya waxa weeye waxay ku dhisnayd dukaamaysi dhaqaale dukaamaysigii dhaqaale oo dowladdan ka horeysay lagu qabay iyo madal in lagu go-aaminayay meeshii maqaamkii ay lahayd baarlamaanka aqalka shacabka iyo kii magaca la samayn go-aankooda waxay gaari lahaayeen oo xeerkii doorashada dalka lagu maamulayay samayn lahaayeen in aakhirka ay ku dhammaato waxa soo socda oo dhan inay sidii hore ay ahaato oo ah madal aakhirka in lagu dameeyo aqaladii baarlamaanka lasoo xiro gudoomiyaha aqalada labada gudoomiye aqalada iyo dowladda dhexe iyo inay isu yimaadaan iyo maamuladu oo ay kula heshiiyaan oo laga diiday oo la codsaday oo la yidhi 2 sano 2021 doorashada aan isla gaaro anaga korsiimo noo sameeyay oo laga diiday oo la yidhi intaasoo lacagna siiya qaarkood intay tageen xamar ay yidhaahdeen intaasoo lacag ahana la siiyo annagaa soo afxirayne oo laga diiday oo anigoo negotiationka kaga jira qoraalka inaan soo saaro madaxweynaha la fadhiya cabdiweli uu soo wacayo waxaan hadda xag ka sheegaya xaggana uu soo wacayo oo raba heshiis gaar inuu la galo intaas horta ogaad marka ciidanimo maqnee inta khasaare aad geli lahaydeen shacbi shaweynow iyo baarlamaanka ay soo doorteen ka tashada meeshaan ganacsi baa yiilay ma oolin dowlad iyo maamul ma oolin ugu dambeyntii waxaan kula talinayaa madaxweynaha hadda xil ka dhammaaday inuu ka tanasulo sharxaadiisa talooyin badan baan siiyey ma uu yeeli jirin wax ka ool mid caamay ahayd hadda mid shaksiyaan siinaya midda shaksigaa waxa weeye cabdiweliyow juun 9 2014 waxaa tidhi haddaan doorasho qaban waayo qof iyo coda iyadoo waraaqihii maamulada dowladaha hoose ay ku codayn lahaayeen loogu codayn lahaa ay ku jiraan muxuu ahay karaatiintii oo ay yaalin guryihiina u jaaran yihiin haddaad hirgelin weyday markaad adigu hadalkaa tiri niyadaadu ka soo go'ay laakiin maanta ninkii maahida nin kalaa tahay laakiin dadkii ku dhagaysanayay annagaa ka mid ah ilaahayna waa ku maqlahay rikoorkaasuna waa kugu jiraa luuxul maxfuud 2014 bishii juun 9 hadalkaa tiri may sharaxayo waana aan fashalmay adaa isku marag furay January 5 2016 waxaa tiri anigu isma sharaxayo March oo sanadkaana 10 waxaa tiri anigu isma sharaxayo maxaa maanta isu sharax ya su'aashu waxa weeye maxaa maanta isu sharax maadan ismaqlayn maadan rikoor anigu rikoorada waa haynaa maxaa adiga rikoor jiray aqoonyahan baaba sheeganaysay xildhibaanada u dambeyntu way sheegayaan xildhibaanada cusub dhalinyaro u baahantii baa u badantii Soomaaliduna waxay tiraahdaa ama adduunyada dhan laga yiraahdaa mustaqbalka waxa iska leh dhalinyarada maxaa looga jeedaa mustaqbalka dhalinyarada waxay u leeyihiin maxaa yeelay
qiyaasta bini aadamka qofku meel dhiman ilaahay yaqaan inay muddo sii noolaanayaan baa xisaabta ku jirta dadka waaweyn ka hor dhimanayaan duwaasa inkastoo dad waaweyn weli soo joogaayeen dad badan ay dhintaan oo xasuuq uu jiro wadankan oo qaraxyo ay ku dhamaadeenba waxa weeye mustaqbalka idinkaa leh baarlamaankaas baarlamaan nadiif ah oo sidaa inii sheegay guddoon fiican iyo guddiyo joogta oo fiican dad wax yaqaan xilkasa nadiif ah u door maaha nimankii taarooyin wataa inay soo galaan darbida ku dhigtaan tabeelayaal yiraahdaan meeshu ma masraxba meesha baarlamaanka waxaan u dhisnay inuu yahay meeshii aqalkii golaha shacabka xeer dejinta maaha meeshii muxuu ahaye hidaha iyo dhaqanka ninkii kitaaro wataay xafiiska hidaha dhaqanka meel ka samaysa tabeelayaasha meesha lagu dhijinayo intaas baan idin kula dardaarmaya idinka dadkiina dadweynahan waxaynu kula dardaarmaya xildhibaanada idinka ka yimaadeen qof walba ama cid walba oo reer Puntland xildhibaankeedii ha kula dardaaranto qabiil ha raaci mansab lagu sheego la yiraahdo nin wasiir lagu siinayo jeceshahay ama aduu wasiir qaado hadhow ka tanasu oo muxuu ahay xildhibaanka markaan wasiirka ku siiyo ha yeelinina qofkaas qof dhintay ka dhiga hadduu maanta soo saari waayo qofkii Puntland maanta waxay saaran tahay qabri daankiis wadnaha digle nafti baan ka bixin inay naftu ku soo noqoto tusaalihii Soomaaliyana oo soo noolaado oo tusaalihii Soomaaliya halka oo ku dhimaado halka tusaalihii Soomaaliya ku dhinto Soomaaliya waa dhimato maanta xildhibaanadaas Puntland iyaga dilay Soomaaliyan iyaga dilay hadday maanta sida la rabay ay yeeli waayaan oo ay u soo saari waayaan maanta nin madaxweynaha oo hawsha qaban kara soo saari waayay aniga nin aan u ahay campaign manager ma jiro nin aan intaan dad ula hadlo oran ya hebel doorta ma jiro dadku way is yaqaanaa qof walba waa la garan karaa qofkii ilaahay inii dooro ilaahay inuu ku ahaameeyo doora laakiin ladaam qabyaalada raacinin intaas way ballantay aniga salaamu calaykum